talo ku nool way ummaddu bini'aadanku talo bay ku nooshahay xildhibaan annagu hadda ka hor waxaan isku sheegnay inteena badan annagoo dhan maahane galmudug analysis baan ku samaynay waxaan nidhi il dhaqaale ma leh ciidan u gaarana ma leh khilaafna wuu dilooday arrintaasi waxa ay na tusisay inaan noqono dowlad ku nool oo aanan dowladda ka maarmin maamul kasta oo dowladda ka soo horjeeda galmudug inuu fashil ku dambaynayo arrintaas waa wax badan baa laga wada hadlay xildhibaano iyo senataro iyo dad ordayo halkan yiri diida oo dowladda rabay inay ku jilaafeen xataa dadkan dadkii ka soo horjeestay way oo la yiri annagu dowlad meel uga maarano uma jeedno fikirkaagana waa la soo dhaweynayaa dad kulay aaminsan waa jira guulaha annagu aan leenahay dowladdu way qabatay waxa lagu kala leexsan waxa kamid ah wadaadada meesha jooga annagu waxaan u aragnaa oo dad badan u arkaan caqabad galmudug inay ahaayeen waa ku abaal marinaya anigu aragtideeda in maaragtay dowladdu ay meesha ka saarto oo ay ummadda ka mid noqdaan run baa la rabaa ma ogtahay maba dhisanteenba galmudug maba dhisanteenba hadda nimankaan aysan dadka la mid noqon 11 qabiil wey lagu leeyahay nin baa wuxuu leeyahay halkaan la igu shubo wax gaara ma iskeenaysa xisaabtaas suurtagal ma wax loo joogo muddo loo sheegi kara ma wadaadadu waa badan yihiin 10 gruup oo wadaadaha jira sida anu ururdiimeed hubaysan ma soo dhaweeyba ururdiimeed hubaysan oo siyaasadda raadinaya ama iltixaad ahaado ama maartay sunnaha ahaado meel xun buu ku dambeeyaa wadaad kitaabkiisa iyo qorigiisa iyo qiilkiisa isku wata wax uu reebay lama arko dadku dilaya qiil buu ku banaysanaya